waxaa maanta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laga furay shirweynihii labaad ee gudoomiyaasha waxbarashada gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kaasoo socon doona maalmaha fooda inagu soo haya waxaana lagu lafaguri doonaa sidii loo tanyeyn lahaa waxbarashada dugsiyada sare iyo hoose iyo waliba jaamacadaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana ka hadlay munaasabadaasi wasiirka wasaaradda waxbarashada agaasimaha guud ee wasaaraddaasi barasab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna kusimaha barasabka gobolka Togdheer Maxamed Nafaqo maayirka degmada Maxamed Muraad macallimiinta dugsiyada iyo sidoo kale maamulada jaamacadaha cilmi-diinta gobolka Togdheer salaadiin waxaana kamid ah hadaladoodii dugsiyadkii ka dhamaaday xogoorintii la soo sameeyay 430 arday ayaa dhigtay dugsiyada hoose dhexe oo boqolkiiba 45 kamid ah ay yihiin markaa hablo dugsiyada sare ee dalka waxaa dhigta 350,000 arday oo boqolkiiba 41 ay hablo yihiin waxbarashada barbaarinta carruurta ama kindergarten ka yiraahdo 8,474 arday baa dhigta oo boqolkiiba 50 ay hablo yihiin haddii inta saddexda hore eegnaamka waxbarashada barbaarinta waxbarashada dhexe iyo waxbarashada sare waxaad arkaysaa in tirada habluhu ay hoos yar dhacayso marka farsamada gacanta dugsiyada farsamada gacanta waxaa dhigta 3,460 dhalinyarada baa dhigta kala duwan waxay isugu jiraan markaa farsamada gacanta ee dugsiyada sare oo Hargeysa iyo Burco looga socota oo formal ah waxbarasho markaa farsamo toos ah iyo waxaa jirta waxbarasho gaaban oo 3 bilood iyo 6 bilood sanad oo xirfado kala duwan la barto anaga wasaaradda waxbarashada tan hay sanadkan mudnaanta waxa la siinayay waa tayada waxbarashada in kor loo soo qaado oo heer kasta waxbarashada tahay haddii waxbarashada soo tahay dad sare tahay inteedu markaa kor soo kacdo oo la jaan qaado tayada caalamiga ee standardka caalamka la jaan qaado waxaan rajaynayaa oo isleeyahay waa horumar aynu gaadhnay in gobolada aynu ku qabanno shirarka caynkaas ah oo dawladnimada inta hoos loo daadejiyo dadka gobolada ku nool la tuso in dawladdu agtooda intay timid ay kaga hadlayso ubadkooda aayahooda iyo qiimaha waxbarashada ay leedahay wasaaraddu iyadaa ka mas'uul ah ilmo kasta oo Soomaaliland jooga waxbarashadiisa shirkan runtii waa shirkii labaad ee noociisa intii aynu ahay dawladnimada qaadanay la qabto waana shir runtii aad u qiimo badan oo lagaga wada tashanayo hawlaha waxbarashada ee dalku halka ay marayaan oo runtii 3 biloodba mar la qabto shirkii koowaad waxaa lagu qabtay Boorame shirkii labaad ama 3 biloodkii labaad ayaa maanta gobolka Togdheer magaalada Burco aynu ka furmaya ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay shirarka 3 biloodlaha gudoomiyaasha gobolada waxbarashada waxaa ugu horeeya dardargelinta waxbarashada gobolada waxaa la yiraahdaa maamul daadejinta ama decentralization-ka dawladnimo ay muuqanayso in gobolada shirarka loo qaybiyo wasiiradu sida ay hawlaha ay u wadaan oo marba horeba la tago Burco la tago Laascaanood la tago Eergaabo la tago shaqooyinka loo qaybiyo degmooyinka iyo gobolada oo ku faraxsan maantana haddii wasiirka iyo wasaaradda nala joogaan waa inaanay faramanaan naga noqonin aan halkan ka ballan qaadno magaalada iyo gudaheeda iyo iskuulada maadaama tayadii aan ka shaqeynayno iskuulada gaarigii inta la isaga gudbi lahay lagu soo kormeeri lahaana waa inaan maanta halkan ka ballan qaadno baritaan iibina hadii la haysto waxaana mas'uuliyadii noqotay ardaydeenu waxay ku tartamayaan waa in ardaygu aqoon ku tartamo laakiin hadduu ardaygu eegta inanka ay jaarka yihiin ama inanta jaarka ay yihiin waxay dhigataa jaamacadda adiga maxaa jaamacadda ku diiday adiga u dhaadna jaamacaddan iska tagtay haddaynu ku tartano waan dumaynaa ku faraxsanahay shirkan soo dhaweynaya lagaga tashanayo waxbarashada aayaheeda iyo mustaqbalkeeda
nebi maxamedow baa ilaahay yidhi miyay siman yihiin kuwa wax yaqaan iyo kuwa aan waxba aqoon ma sineen taasaa daliil inoogu ah nasna inoogu ah qofka wax yaqaana. waa markii u horeysay ee lagu qabto shirkan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi, Somali Cable, Burco.